waayahay waxa macquul ah isweydiinaysa sida aad ku imaan kartid meeshan waxa ku imaan kartaa waxbarasho iyo sidoo kale dalxiis labadaba waa ku imaan kartaa. waxbarashada waa inaad kow jaamacad xareysataa, jaamacadaas ay kusoo aqbashaa lacag deposit aad bixisaa oo jaamacadda deposit ay ka qaadaysaa si ay kuu siiso warqadda aqoonsiga oo hadhoodii aad ku imaan kartid fiisa ahaan aad ugu imaan kartid meeshan. assalaamu calaykum waarin islaam dhamaantiin kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub isku soo noqod wanaagsan. haddii ay tahay markaad kugu horeysay channelkan kusoo dhawow, fadlan subscribe noo saar, muuqaalka haddii aad ka heshidna like saar, waa mahadsantahay. muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay safarkayga India ilaa Cyprus iyo sidoo kale maciishada, nolosha, waxbarashada iyo sidoo kale sidoo qofku ugu noolaan karo kuna imaan karo wadanka Cyprus. sida wada ogeeyna dhamaantiin waxaan joogay muddooyinka ugu dambeeyay dalka India. Hindi waxaan kasoo tagay sanadkii hore dhamaadkiisa, Cyprusna waxaan imid sanadkan bilowgiisa. ma rabin inuu waqti badan iga lumo, saas darteed waxaan go'aansaday inaan isu dhaweeyo oo uunan wax gaaba ii dhexgelin markaan dhigi bachelorskayga soo dhameeyo aan hore masterkayga ka bilaabo. sidaas ayaana sababtay inaan meeshan si degdeg ah aan ku imaado. ugu horeyn Cyprus waa jasiirad ku taala Yurub, qayb ka mid ah waxaa maamula Turki, qaybta kalena waa Cyprus weyn ee la aqoonsan yahay oo waxaana maamula Greek. waxay u kala qaybsan tahay qayb waqooyi iyo qayb koonfur ah. aniga waxaan ku noolahay qaybta waqooyiga oo ah North Cyprus, runtii wax xog ah kama hayo qaybta kale ee koonfurta ah. North Cyprus waxaa maamula Turkiga, waxaa ku nool dad Turki ah, waxaana looga hadlaa luqadda Turkiga. waxbarashada meeshan aad ayay qaali u tahay runtii markii la barbar dhigo meelaha kale wadamada kale sida India. waxbarashada dhanka bachelor's degree-ga runtii aad ayay qaali u tahay haddii aadan helaynin scholarship 100% ah. haddii aad tahay qof Ilaahay wax siiyay oo qiimahaas goyn karo waad dhigan kartaa, wayna kuu furan tahay. balse haddii aad tahay qof average ah oo arday ah oo rabo inuu meeshan wax ka barto, degree-ga meeshan runtii aad ayuu qaali u yahay haddii aadan helaynin scholarship 100% ah. waxaa kuu soo haray dhanka masterka oo aniga hadda master ayaan sameynayaa. masterka laftirkiisa waa yar qaali, laakiin haddii lagu siiyo 50% scholarship ah macquul waa qiimihiisa oo waa goyn kartaa. 50% ay hadda bixisaa jaamacadda, ma ogi inay sii wadi doonto sababtoo hadda COVID-19 ka dartiisa ayaa loo sameeyay discountigaas, laakiin ma hubi in ay sii socon doonto oo 50% mar walba ay sii jiri doonto. laakiin haddartaan 50% scholarship ayaa ani helay iyo dadka ila midka ahba, taasna waxay ka dhigaysaa xoogaa mid macquul ah oo qiimaheeda la goyn karo. masterka hadda ani aan dhigto labada sano waxaa waaye lacag $4,000 ku dhow. dhanka waxbarashada waa dhankaas. waxaa ku soo hartay dhanka nolosha, maciishada iyo guryaha. maciishada meeshan runtii aad ayay qaali u tahay, waxaana ka jira sixir barra aad u weyn. waxay ku xiran tahay Turkiga, wax walba oo Turkiga ka dhaco halkan aad ayay u saameynaysaa. sidoo kalena dhanka guryaha laftirkooda aad ayay qaali u yihiin markii la barbar dhigo wadamada kale iyo sidoo kale India markii la barbar dhigo. tusaale ahaan dadtan 2 qol iyo fadhi ayaan deganahay dartaan, waana lacag 200 oo pound ah. markii loo bedelo dollar waxay noqonaysaa $250 ilaa $260 Mareykanka ah. waxaa ku soo hartay dhanka gaadiidka. jaamacadda dhiganaysid jaamacadaha waxaa aado basas oo jaamacadaha badankooda kulligood waxay wada leeyihiin basas ay u gaar ah oo free ah. haddii baska jaamacadda ah hesho waa waxay kuu fiican oo lacag ay kuu baaqanayso, laakiin haddii aad weysid jaamacadda baskeeda waxaa ku qasban tahay inaad raacdo basaska kale ee localka ah. basaskaas haddii meelaha inkastoo ay ku xiran tahay meesha aad u socotid, haddii aad ka tagaysid caasimadda oo ah Nicosia ama Lefkosha oo aad u socotid tusaale ahaan Girni oo ah jaamacadda meesha ay ku taalo, aniga oo kala dartaan meesha aan deganahay iyo jaamacaddu way kala fog yihiin, waxay isu jiraan 18 km ilaa 25 km ay isu jiraan. marka waxaan ku qasbanahay inaan bas raaco oo aan saan ugu tago jaamacaddeeda. marka baska jaamacadda badanaa waa helaa, laakiin markii aan waayo waxaan ku qasbanahay in aan raaco basaska localka ah. marka Lefkosia ama Nicosia markii aad ka tagaysid Girni u socotid waa 20 TL, waa lacag u dhiganta $1.5. sidoo kale wuxuu ku dhigayaa city centerka Girni ayaa ku geenayaa baskaas. markii city centerka aad ka tagaysid oo jaamacadda u sii socotid waa inaad baska la sii raacdaa asagana $1 ah. halkaas waxaa kaaga baxday $2.5 iyo soo noqoshadii oo $2 ah. lacag $5 ayaa kugu baxayso haddii aad ka fog tahay jaamacaddaada oo aad laba magaalo kala degan tahay. waayahay waxa macquul ah isweydiinaysa sida aad ku imaan kartid meeshan waxaa ku imaan kartaa waxbarasho iyo sidoo kale dalxiis labadaba waa ku imaan kartaa. waxbarashada waa inaad kow jaamacad xareysataa, jaamacadaas ay kusoo aqbashaa
lacag deposit ah bixisa oo jaamacadda deposit ay ka qaadaysaa si ay ku siiso warqadda aqoonsiga oo hadhoodii aad ku imaan kartid visa ahaan aad ugu imaan kartid meeshan. Lacag deposit waa inaad bixisaa waana $1200 oo dollarka Mareykanka ah. Lacagtaasna waxay ka jaran tahay lacagta jaamacadda aad ku dhigan lahayd. Saas darteed markii warqadaas jaamacadda ay ku siiso warqadahaada kale isku aadisanaysaa. Markii warqadaas aad heshidna tigidhkaada ayaad goosan kartaa waadna soo bixi kartaa. Markii aad imaadid meeshan waxaa laga fiirinayaa warqadda jaamacadda sidoo kale shahaadooyinkaaga iyo warqadaha oo dhan inay ku saxan yihiin. Laakiin ogow haddii hal warqad ay ka qaldan tahay ama wax yar ay ka qaldan yihiin 99% waxay u badan tahay in dib lagu celiyo sidoo dadka badankooda ay ku dhacdo. Marka waa inaad taxadar aad u weyn u muujisaa dhankaas oo aad ka walwashaa kana fikirtaa warqadahaaga oo dhan inay sax ku yihiin wax walba oo lagaaga baahan yahay inta aadan wadanka imaanin tigid iyo qarash aadan soo gelin waa inaad iska sii xaqiijisaa wax walba oo aad u baahan tahay oo markaas lagaaga baahan yahay si hadhoodii wax dhiba ama wax noqosho ah oo hadhoodii khasaaro ku keeni kara aadan oo la kulmin. Afifteedu waxay tahay aniga ma ihi muqallas aniga ayaa mar dhow imaaday oo aanan wax badan kala garanaynin wadankan si fiican u kala garanaynin balse haddii aad u maleyso inaan wax ka caawin karo waad ila soo xiriiri kartaa intii aan awoodo oo ku saabsan dhanka waxbarashada jaamacadaha admissionadooda iyo imaashaha iyo wixii documenti ah oo lagaaga baahan yahay. Haddii aad is leedahay waa ka caawin karaa waa ila soo xiriiri kartaa dabcan waana ka caawin doonaa intii aan awoodo. Haddii aan isbarbar dhiga meeshan iyo Hindiya oo aan isdhaho Hindiya iyo meeshan labadooda kee fiican oo adiga laftirkaaga macquul ay tahay inaad isweydiinaysid runtii Hindiyana waxbay ku fiican tahay meeshan waxbay ku fiican tahay. Meeshan haddii loo barbar dhigo Hindiya dhanka cimilada inta ayaa wanaagsan oo badanaa waa qabow. Haddii dhanka pollution-ka la yiraahdo qaylo iyo maaragtay pollution badan kama jirto oo meeshan waa meel iska jawi degan oo qayladeeda iyo buuqeeda way iska yartahay halka Hindiya buuqeeda uu aad u sareeyo sidoo kalena hawadeeda iyo pollution-keeda ayadana aad ay u yar xun yihiin mararka qaar. Balse dhanka maciishada iyo nolosha Hindiya ayaa 100% aad raqiis u ah aadna stable u ah oo lagu noolaan kara. Waxyaabaha runtii aan Hindiya ugu xiiseeyay waxaa kamid ah number 1 cuntada sababtoo cuntooyin aad u kala duwan aad u badan ay leedahay meeshaas oo sidoo kale aadna raqiis u ah oo aan qaali ahayn sida meeshan oo kale. Sidoo kale maciishada iyo nolosha raqiiska ahayd sidoo kale waan u xiisay. Waxyaabaha aan u xiisay waxaa kamid ah bariiska biryaniga la yiraahdo oo ah bariis number 1 haddii aad Hindiya tagtid yuusan ku dhaafin bariiskaas waa inaad soo cuntaa hal marna Allah ka dhigo. Macluumaadka aan muuqaalkan kugu wadaagayo oo ku saabsan imaashaha iyo sidoo kale nolosha iyo waxbarashada Cyprus ama North Cyprus runtii wuxuu aad u anfacayaa kaliya dadka ardayda ah oo raba inay meeshan wax ka bartaan sababtoo ah macluumaadka maanta aan kula wadaagayo aniga markii aan ka maqnaa meeshan la ilama wadaagin oo inta maanta aan ogahay ma ogeyn markii aan ka maqnaa. Marka wixii aniga i dhaafay mar rabi inay adiga ku dhaafaan saas darteed ayaan go'aansaday inaan muuqaalkan u sameeyo oo adiga aan kaaga faa'iideeyo. haddii aad ku qanacdo macluumaadkan waa imaan kartaa meeshan. haddii aadan ka helin oo aad ka baqaysid noloshan qaaliga ah jaamacadahan qaaliga ah iyo waxyaabahaas haddii aad ka gabanaysidna wadamo badan ayaa jiro oo aad ka dhigan kartid jaamacadaada kuna noolaan kartid. haddii aad rabtid sidoo kale inaad arrimo kale u imaadid ayadana waa adiga shakhsiyadaada wax kugu xiran oo adiga ayay gaar ku tahay laakiin kaliya ardayda ayaan la talinayaa taladan ardayda ayay ku socotaa. macluumaadka aadin haya intaas ayuu ku kooban yahay dabcan inta aan sii joogo haddii wax kale oo dheeraad ah ay jiraan waa idin la soo wadaagi doonaa si ay kugu dhaafin channelka subscribe saaro gambaleelkana furo si fariinta ay kugu soo dhacdo mar walba aan wax soo dhigno. muuqaalka intaas ayuu ku eg yahay waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka inta haddii aad soo gaartay ayaan kaaga mahadcelinayaa. muuqaalka sii share gare oo asxaabtaada rabta inay Cyprus imaadaan la wadaag muuqaalkan si ay uga faa'iidaan una ogaadaan macluumaad aysan horay u ogeyn. muuqaalka like saar sidoo kale channelkana subscribe saaro gambaleelkana furo si aad u heshid mar walba oo muuqaal aan soo dhigno. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan inta aan ku kulmayno muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.